بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مطبخة منى maanta waxaan la qaybsanayaa khudaar foornada la geliyay oo nafaqo leh qadar fudud waxaan u sameynaynaa kuskus waxaad doontaa u sameynaysaa laakiin aan maanta kuskus baan u sameynayaa so let's go marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay khudaar kala duwan khudaarta guriga ku taala ama khudaar aad soo iibsatid aan waxaan jeclahay khudaarta inaan kala badbedelo marka maanta waxaan ku sameeyo maalinta dambe kuma sameynayo inkastoo baradhada markasta iyada aan ka dhigo khudaaraha ka mid ah so maanta waxaan ku sameynayaa baradho basal broccoli sushini hore aan soo sheegay af Soomaali kuma garanayo waa kuusan maraya af carabi courgette baa Faransiiska ku yiraahdaa so sushinigaas iyo broccoli iyo carrot iyo basal iyo baradho iyo toon marka imika waxaan jarjaray baradhadii iyo basashii broccoligiina wakaas isaga waan sii jarjaray blade weyn baan ku ridayaa madiibad weyn ayaan ku ridayaa khudaarta imikana waxaan jarjarayaa sushiniga hore uu bislaadaa isagu kaaroodkuna waqtigu qaataa marka kaaroodka markaan jarjarayo imika waad aragtiin kaaroodka markaan jarjarayo waxaan ka dhigaa khafiif yani very waxaan ka dhigaa sliceska aad baan u khafiifiyaa si hore ugu bislaado waayo cuntadana khudaartan dhan aan sameynayo kaaroodka waqti ku qaato marka kaaroodka haddaa khafiif ka dhigtid isaguna hore ayuu u bislaanayaa madiibadii weyneyd waan ku wada ridayaa kulligood imika markaasna si fiican baan u maydhaynaa markaad maydhid kadibna waxaan jarjarayaa toonta mididaada caadigaas ka jarjari kartaa haddaad doonaysid ama waxaad ku jarjari kartaa baalka lagu xoqo si u noqoto u yaraato marka anigu kan lagu xoqo imika ayaan ku sameynayaa saad aragtiin marka khafiif bay noqonaysaa hadhow lagama dhex arkayo khudaarta laakiin haddaad midida ku yaryaraysid xataa is fine okay wax dhiba kuma jirto khudaartii aan si fiican usoo maydhay ayaan toontan hadhow dusha kaga darayaa spiceska ama buharaadka xawaashyada aad isticmaalaysid adaa dooranaysid dookaaga laakiin anigu badanaa waxaan jeclahay inaan saytuun yar ku daro iyo oregano thyme basil iyo milix iyo pepper iyo ginger intaasaan ku daraa marka waxaad doontaa ku dari kartaa laakiin anigu badanaa intaas ayaan ku daraa hoosta waan kusoo qorayaa xawaashyadan ku daro kadibna basasha ayaan dusha kaga daadinaynaa waxaan ku ridinaa markaa baking tray kale oo weyn ayaan ku ridinaa khudaarta kadibna waxaan ku daraa aan jeclahay inaan ku daro subag yar imika waad aragtiin waan wada walaaqay buharaadkii oo dhan waan ku wada daray zactarka oregaanada rayxaan baa layihahdaa oregano malaynayaa ginger organic zajabiisha milixdii iyo pepperkii filfil aswadka basashana way dhaadheer tahay way dhuudhuuban tahay markaan ku darayo wixii dhexda ku jiray basashana waan ka saaray marka basashana khafiif markay noqoto iyaduna horey u bislaanaysaa mana gubanayso marka wataa imkaan basashii ku dardarayaa waana khudaar iska fudud foornadana intay ku jirto waxaad usii samayn kartaa waxaad doonaysid anu sideedaan ku jeclahay inaan ku cuno ano bariis iyo baasta iyo waxba ku cunin imika wakaa baking traygii weynaa baan kusoo daray khudaarta markaa ku wada shubtid waxaan jeclahay inaan subag yar soo qaado oo geesaska in yar kaga saaro subagu dhadhan yaro macaan waa subagana waa subaga milixda ah salted butterkii weeye subagaa dhadhan yaro macaan ayuu u yeelayaa laakiin waad ka dayn kartaa saliid kaliya ku dari kartaa laakiin waxaan jecel dhinacyadaan ka daro kadibna foornada ayaan ku ridaya shoorada waxay ku jiraysaa 25 daqiiqadood intay ku jirtaan waxaan sii sameynaynaa kuskuskii laakiin waxaad sameyn kartaa macaroni haddaad doonaysid bariis waad u sameyn kartaa semul waad u sameyn kartaa samida alqamx anu laakiin waxaan sameynayaa maanta kuskus
kuskuskuna waa kuskus kaamilka ah, waa ka buniga ah, ka cadaanka ma aha. maqlaha saliid yar baa ku shubaysaa, basal yar baad shaaxidinaysaa, kadibna paprika filfisha ku daraysaa, si barbarooni way af Soomaali, barbarooniga ayaa ku daraysaa, kadibna salt and pepper markasta cuntada waan ku daraa, milix iyo filfil aswadka. kadib waxaan ku darayaa xawaashida kale oo ah kamuun iyo zanjabiil iyo filfil axmarka, barbarooni la shiiday maa yidhahda matxuunka ah, basaan ku darayaa, laakiin xawaashida doontid waad ku dari kartaa. intaas markay isla shaaxidaan waxaan ku daraynaa yaanyada ama tamaandhada ama xabuubta aad u taqaanidba. saddexdoodaas markay si fiican isla shaaxidaanna kuskuskii ayaan ku daraynaa. kuskuskuna waa yara engegan yahay, waa yara qalalan yahay, markaa koob biyo ah ayaan hadhow ku daraynaa, 2 koobna waad ku dari kartaa calaa xasab adigu saad jeceshahay. horena wuu bislaada kuskusku, 10 daqiiqadood ayuu maqluubku saarnaanaya, wax weyn ma aha. kadibna waxaan kasoo saaraynaa shooladii khudaarteenii, waan isku daraynaa, isku cunaynaa. kuskuskii imika waa diyaar. kadib waxaan kasoo saaraynaa khudaartii oo noo diyaar garowday, shoolada ku jirtay 5 ilaa 10 daqiiqadood. xasuusan markay shoolada ku jirto inaad yaro walwalaaqdid oo rogrogtid sayna ugu dhegin iyo say dhinac kastana uga bislaadaan. imika wataas waa diyaar. anigu sideedaan ku jeclay inaan ku cuno, bilaa yar intaan kusoo rito ayaan waxaan u sameeyaa xabad roodhi ayaan soo qaadaa, zubdaha salted butterka ayaan soo qaadaa, markaasaan xabad roodhiya marsadaa. sideedaan ku jeclahay markaas inaan ku cuno. marmar xataa roodhida kuma cunee, malgacad intaan usoo qaato baan khudaarta sideedas ku cunaa. aad bay macaan tahay, wayna ku macaan tahay roodhida haddaad ku cuntid oo butter yar marsatid, zubdo yar marsatid. haddii kale waxaad u samaysan kartaa saan hore usoo sheegay, bariis, macaroni, basto, samuulkaas samiidada, ama kuskuska. mar wax baan u sameeyaa, mar sidan baan ku cunaa, roodhi baan ku cunaa, mar kuskuskaan ku cunaa, mar macaroni aan u sameeyaa, markaas macaroni iyo khudaarta isku wada dhexgeliyaa ama dusha ka saartaa. so depends on you, adag ugu xidhan tahay waxaad jeceshahay. anusaan sheegay khudaarta sideedan ku jeclahay. kuskuska markaad ku dartid dusha waxaad doontaa kaga dari kartaa tamaandhada yaryar, tomatoska yaryar oo loogu talagalay saa loo cuno, taas dusha kaga dari kartaa. salad baa u samaysan kartaa. anigu maanta waxaan ku darayaa feta cheese, waa jubne, jubniyada kamid ah, cheeseska kamid ah oo yara dhanaan ah. markaas saladkan ku daraa asaga badanaa. pizzada dad baa qaar ku dara, turkidu badanaa waxay ku darsadaan waxa la yihahdo berek. marka feta cheeseka ayaan dusha kaga darayaa, and it's ready. idinkaas aad ba umahadsan tihiin daawadayaal. insha allah waxayna arki doonaa next time insha allah. so baraك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.